munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday gaadhaya 400 oo ka qalin jabiyay iskuulka barashada kombiyuutarka ee Sidka College ayaa waxaa maanta lagu qabtay hoteelka Balaas ee magaalada Burco. Munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay badhsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Master Ubaxle, gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac, maamulka iyo macallimiinta iskuulka Sidka College, maamulaha jaamacadda Golis University ee magaalada Burco, waalidiin, ardayda, waxgaradka iyo marti sharaf kale. waxaan ugu horeyn munaasabadani ka hadlay maamulaha maxadka barashada kombiyuutarka ee Sidka College Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi oo ku dheeraaday maraaxilka kala gedisan oo soo maray iskuulkani iyo muhiimadda ay kuliyadani u leedahay bulshada gobolka Togdheer iyo dalka. كولجكم أنت بدل تعرفين الورد صورين المرة والحاد صورين وعلى المرة حتتين وغلعين كشغيلين حتى ما كشغيلين Sidka College. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Xasan Jaamac, maamulaha jaamacadda Golis University Cabdixakiin Maxamed Cabdulaahi, maamulaha iskuulka Sheekh Yuusuf Kaynuun, oday Abubakar Cumar Aadan Dibi oo si isku mid ah guud ahaanba uga hadlay muhiimadda ay leedahay waxbarashadani iyo kuuliyadda ay ardaydu barteen, iyagoo ardaydan qalin jabiye kula dardaarmay inaanay halkaasi kaga hadhin waxbarashada. waxaan aad u bogaadinayaa ardayda maanta ka qalin jabinaysa halkan ee tiradoodu ka badan tahay 400 oo u kala qaybsan afartaasu qayb certificate iyo qayb dibloma waana dafcadii 32 sida dugsiga la iga sheegay ay maanta sameynayaan wasaqiyo iyo barnaamijyo waayo waa imiladii aanu soo wadnay in ka badan 20 sano inaanu waxbarashada gobolka ka dhigno mid la haysata caalamka standard wanaagsanna u baxda waa taariikh fog halka uu soo maray barnaamijkan in maanta ardayda Sidka من والدك كارديد waxa weeye aqoontu saa la sheegay waxa way bilow meel dhamaad ma leh in arday walba aqoontaad inta aad hayso mawduuc kasta iyo subject kasta ha noqdee inay ka muuqato aqoonteedii dhaqankeedii akhlaaqdeedii iyo kartideeda inay ka muuqato waxaana si wanaaga anigu wax badan baan Golis soo joogay xafladaha ay leedahay maalinba ama sanadka waqti ka dambeeya wixii maalinta laga hadlayay wax ka sareeyo oo ka dambeeyay baa laga hadlaa. waxaa isaguna munaasabadani soo afmeeray badhsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle oo ka sheekeeyay muhiimadda iskuulkani ugu fadhiyo gobolka iyo muhiimadda ay waxbarashadani u leedahay ardaydani, isagoo ardaydani kula dardaarmay inaan waxbarashada halkaasi kaga hadhin ay sii wadaan. dugsigan Sidka College oo meelaha ugu badan ee soo saara bulshada waxbarashada dhisa aqoonta bulshooyinka aad iyo aad baan u mareynayaa isaga iyo cidda uu leeyahay dowladaanta ama yacni baada uu ka tirsan yahay hoosta loo baartanka leeyahay ee Golis University. waxaa ugu dambeyntii halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay iskuulka Sidka College, iyagoo ardaydan in ay shahaadooyin ay macallimiintooda ku maamuusayeen muddadii ay wax soo barayeen halkaasi ku guddoonsiiyey. dafcaddani maanta ka qalin jabiyey maxadka barashada IT-ga ayaa noqonaya dafcaddii 12aad ee ka qalin jabiyey iskuulka Sidka College. waa Khadar Cabdirasaaq Suleybaan, shabakadda caalamiga ee Hadwanaag News, magaalada Burco.